xiisad sii kordhaysa ayaa laga dareemayaa xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil iyadoo labada dal ay isku hayaan arrimo siyaasadeed, istiraatiiji iyo kuwo amni oo saameyn ku leh gobolka Bariga Dhexe. Khilaafka ugu weyn waxa uu salka ku hayaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan arrimaha Falastiin, saameynta gobolka iyo xiriir ay la leeyihiin dalal kale oo awood leh. Turkiga ayaa si cad u taageeray qadiyadda Falastiin halka Israa'iil ay sii wado siyaasadeeda amni ee adag. Arrintani waxa ay keeni kartaa hadallo kulkulul ay leeyihiin eedeymo isdaba joog ah iyo hoos u dhac ku yimaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac. Marka laga yimaado siyaasadda, waxaa kaloo sidoo kale jira tartan ku saabsan saameynta gobolka, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo badda Mediterranean-ka, halkaas oo ay ku loolamayaan awood, kheyraad iyo saameyn military. Ay adag tahay in dagaal toos ah uu si degdeg ah ugu qarxo, haddana khubaradu waxa ay ka digayaan suurtagalnimada dagaal wakaaladeed. Tani waxa ay dhici kartaa marka labada dal ay taageeraan kooxo ama dowlado kale oo ku dagaalama meelo colaaduhu ay ka jiraan sida Suuriya ama meelo kale oo gobolka ah. Dagaal noocan ah oo kale ayaa noqon kara mid halis badan maadaama uu sii dheereeyo colaadaha jira, kordhiyo khasaaraha bini'aadanimo, isla markaana uu abuuro xasilooni darro sii fida. Turkiga ayaa hore ugu lug lahaa howlgallo military oo ka dhacay Suuriya iyo meelo kale, halka Israa'iil ay si joogto ah u fuliso weeraro ay ku sheegto kuwa ay kaga hortagayso ama ka dhana kooxaha ay u aragto khatar. Awoodda iyo militariga haddii aan fiirino labada dal ayaa muujinaysa in Turkiga uu leeyahay ciidan tiro badan iyo awood dhuleed oo xoogan, halka Israa'iil ay ku tiirsan tahay tiknoolajiyad sare, sirdoon xoogan iyo awoodda cirka oo aad u horumarsan. Inkastoo dagaal toos ah uusan weli mid u muuqan, haddana xiisadda sii kordhaysa iyo dagaal wakaaladeedka ayaa suurtagal ah ay leeyihiin, taas oo khatar weyn ku ah xasiloonida gobolka iyadoo indhaha ay ku sii jeedaan in halkaas uu dagaal toos ah ka qarxo.